dadka Soomaaliyeed waxay xaq noogu leeyihiin inay ogaadaan waxa jira iyo xogta jirta inay la socdaan ay xaq noogu leeyihiin sida awgeed wax kasta oo soo kordha oo xog ah waa in lala wadaagaa oo la gaarsiiyaa waxaad ogtihiin berri inay ballantu ahayd inay murashaxiintu ay dhaheen mudaaharaad qabanayna dawladdu ayadoo tixgelinaysa caafimaadka iyo in amnigu dhibaato badan ka imaan karto markii horeba ra'yigeedu wuxuu ahaa inaan mudaaharaad loo baahnayn xoogga iyo xoolaha aan mudaaharaad gelinaynani loo baahan yahay inaan gelino oksijiin inaan ku soo gadanno oksijiin inaan ku gadanno aan dadkeenna ku daawaysanno inaan gacmaha isqabsanno inaan khatarta caafimaad iyo midda amniga hor tagno sidaasay ahayd laakiin ayadoo sidaasa mar haddii walaalaheen ku adkaysteen in la qabto in laga maarmaan u tahay dawladdu waa ogolaatay waxaa ku xigtay goobtee lagu qabanaa goobtiina hal goobay sheegteen oo adarjir ka dahsoon waxaa dawladdu soo jeedisay war goobo kaloo ammaan ah oo lagu qaban karo oo ammaanku ka fiican yahay oo la sugi karo oo caafimaadaan ka fiican ayaa jiree aan ku qabanno daljirku waa goob ay ku furan tahay horta 9 jid oo 6 ka mid ah laami tahay 3 ka mid ah jid caddayaal tahay kuna yaaliin checkpointiyo muhiim ah in ciidamo aan is-aqoon shaqo isku lahayn iyo dad aan la aqoon la isugu keena waa adag tahay sidaasaan inaan la ahayd waa diideen waa ku adkaysteen waxay dhaheen waa inaan daljirka ku qabsannaa dawladdu waa ogolaatay haddana inay ku qabsadaan waa loo ogolaaday ayadoo la tixgelinayo in waddanka nabaddiisa laga shaqeeyo in bulshada aan la qaybin in la isku xiraado ayadoo la tixgelinayo haddana waa loo ogolaaday qodobkii saddexaad oo farsamada loo gudbay sidee loo qabanaa waxay keentay in loo saaro saraakiil labada dhinac ah oo farsamo yaqaano ah oo iska wareystaan sidee loo qaban karaa dawladdu sidee ammaanka ku sugi kartaa see loo ilaaliyaa caafimaadka taas markay timid waxay ku adkaysteen haddana inay yidhaahdeen goobta ammaankeeda waa inay annagu la wareegno goobta